عمر محمد عمر فيلش قدوميها gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray laba xarumood oo laga hirgeliyay degmada kaxda kaas oo maamulka gobolka banaadir ugu talagalay xarun caafimaad iyo sidoo kale iskuul waxbarasho oo lagu adeegi doono dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada kaxda xarig jarkan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir Cumar Maxamed Cumar Filish gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay MCH-ka iyo iskuulka maadaama si bilaash ah wax loogu qabanayo shacabka ku dhaqan degmada kaxda intaasi kadib duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa si habsami leh loogu soo dhaweeyay xarunta degmada oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen kumanaan shacab ah abwaan bedel oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa tixgabaya ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka banaadir degmadan kaxdan joogno duqaydii ka horeysay iyo dawladda federaalku midna muuna danaynin dulmi bay ku jirtaa dariiqay dhaxmaraan iyo dawya looma sameeynin suuqna daa hadalkii istaashinkiina la diid hooyada dihanaysa markay fooshu dekanto war meel aan ku daweynayo daryeelkii uma hayne hadii daan ku keenay adeero u dadaalo dayma gaar u yeelo intaasi kadib Maxamed Yuusuf Maxamed gudoomiyaha degmada kaxda ayaa dhankiisa munaasabadan soo dhaweynta ah ka hadlay soo dhawow degmada kaxda ku soo dhawow bulsho Soomaaliyeed oo kala duwan oo odayaasheedii culimadeedii dhaqankeedii hooyooyinkii dhalinyaradii dhammaan ku jecel oo gacmo furan kugu soo dhaweynayso ku soo dhawow mudana gudoomiye shirkan wuxuu ahaa shirkii hawlihii mashaariicdii hadda noo soo xarig jartay oo awal aad dhagax dhigtay sida MCH-kii iskoolkii aad fikirkooda iyo taladooda iyo tusaaladooda iyo dhismahooda adigu aad lahayd iyo garbahaagu on kaaga mahad celinayno iyo iswaraysigii bulshada sida boor gadaasheeda ku qoran baa bulshada degmada iyo maamulka gobolka banaadir ay isku waraysanayeen talooyinka tusaalooyinka fiican kaaga dhageysanay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer Cali Cumar Cabdi ayaa ugu baaqay bulshada iyo maamulka degmada inay isku tashtaan oo ay qayb ka noqdaan dib u dhiska degmada maamulka gobolka banaadirna uu garab ku siin doono dib u dhiska degmada waxay kala leeyihiin category markii oo ay wax weydiisato si dhaqso ahna waa kugu soo jawaabaan si aan dhaqso ahayn mararka qaar kugu ma soo jawaabaan waxaan rabaa inaan kala cadeeyo sida dhaqsada ah markay ku soo jawaabayaan markii mashruuc aad dalbato ee aad tiraahdo 5% ama 10% ama 20% ama 30 iska bixina si automatically waa ku soo jawaabayaan laakiin markii aad dhahdo waxaan u baahanahay jidad waaweyn inaan noo dhisto naqshadna u dirto waa iswarseenahay ku dhahayaan macnaha ugu yaraan marka waxaan rabaa tusaale ahaan taas waxaan u soo qaatay hadalkayga hore maalin aan imaaday kaxdana sidoo kale waa iri markii aad dhahdaan waxaanan haysanaa haba yaraadaan dawladda hoose wax ma nagu kabi kartaan hadaa dhahdeen si automatically waxaan balan qaadaa ninka ugu horeeyo shaqadaas qaadina aan noqdo ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose xamar ay ka go'an tahay wax ka qabashada degmada kaxda iyo guud ahaan caasimadda dalka degmada baahiyaheeda way badan yihiin sida aad sheegteen oo culimada ay sheegtay iyo akhyaartuba baahiyooyinka degmadan waa baahiyooyin ay qabaan degmooyin badan oo gobolka banaadir ah qaar badanna muddadii aan joognay waxbaa laga qabtay baahida koobaad waa baahida wadooyinka runtii wadooyinka qaar ka mid ahna waa la dhammaystiray oo gobolka banaadir ah qaarna hadda ayay socdaan qaarka la dhammaystiray waxaa ka mid ah wadada dekada iyo wakaalada muuska isku xirta oo gobolka banaadir albaabkiisa hore marta wadada gaadiidka booliska iyo stadiumka ilaa isgoyska Marina wadada meesha la yiraahdo cirtoogte wadooyin kale oo ay ka mid tahay
yacni laba wado isbarbar taalla oo ka socota oo ku taalla Daynile wadada warshadaha ilaa Cali Kamiin ilaa laga soo gaarayo tiyaatarka qarankana qorshaheeda la wadaa wadada Baarayaan iyo Siinay ilaa Siinay iyo daljirka Dahsoonna hadday socotaa oo Boondheer iyo warta nabadda u dhaxaysa waxaa jira wadooyin kale oo qorshaha ku jira. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, magaalada Muqdisho.